بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسن. halkan saaka waxay noogu marti nooma hay nala jooga gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee Maroodi Jeex, gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee Gabiley iyo dhammaanba mas'uuliyiinta kala duwan ee halkan nala joogaba waxaan ku salaamaynaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan u leenahay mas'uuliyiinta waad mahadsantihiin saad noogu timaadeen ad noo soo booqateen idinkoo wada barnaamij wacyigelina oo aad u samaysaan dhammaan ardayda gaar ahaan fasalka 8aad iyo ardayda fasalka 4aad. mas'uuliyiinta kala duwan waxaan u leenahay ku soo dhawaada gobolka, ku soo dhawaada dugsiga sare Sheekh Cali Jawhar. anigu ujeedkaygu kaliya waxa weeye saaka inaan nigu soo dhaweeyo dugsiga sare Sheekh Cali Jawhar. waxaan leeyahay soo dhawaada. mudane wasiir sharaf weyn bay doontaa maanta inaan ku soo dhaweeyno gobolka. waad naga soo daahdo xumeeyay mar loo soo horeysay noo ahayd aad baan ku soo dhaweynaa boqolkiiba aad baan ku sugaynay. waxaan ku soo dhaweynaynaa gobolka kolley wixii baahiya iyo wixii dhiba aan qabno waxaan noo jooga madaxdii waxba oran maayo. aan waxaan ku hadlayaa intaa kelmadda maamulayaasha la siiyey waxaan ardayda cadeed badan la wahaysaa. waxaan leeyahay in la soo joogo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. anigoo ku hadlaya magaca consortiumka Save the Children, Alight, Hafyoko, Sayfo iyo ururka talawadaag oo aan ahay agaasimihiisa guud, mar labaad waanu idin salaamaynaa. ujeeddada dhacdadani waxa weeye arrin muhiim inoo ah oo muhiim u ah ardayda labada fasal ee dugsiga sare iyo dugsiga hoose dhexe, oo muhiim u ah qaranka iyo guud ahaan dalkeenna. waxa weeyaan wacyigelinta in ay u diyaar garoobaan ardaydu inay ka qayb qaataan oo ay galaan imtixaanaadka fooda inagu soo haya, oo ay ku dhiiradaan in aanay misgarayn fursaddaasi. iyo qodobka labaad oo ah in ay iska ilaaliyaan waxyaabaha wiiqaya ama hoos u dhigaya tayada qofka iyo tayada qarankaba, oo ah qishka iyo kala eegashada, oo ah dhacdada inoogu muhiimsan maanta. عليه وسلم وبعد سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحن سلام يا دمان دكسي سلام الشيخ علي جوهر يا دكسي هذا كلمات هالكم كل مي. وحن سلام يا وزيرك وحبر الشذا. وحن سلام يا أقاسمها جود مركزي امتحاناتك يا دمان أنت كلا صعدت قدومي يا شاء. وحن أذوق فرح سنة ما أنت هنا لا تشوجو أرض ذي aan waalidka u ahaa ee dugsiyada oo dhan isaga timiday anigoo ku hadlaya afka classmate-ka 84-85 una taagan maanta inaanu halkan ka bilowno inaan dhismo ka hirgelino dugsiga ayaa waxaan aad ugu faraxsanahay inay isku beegantay in wasiirka oo idin yimiday iyo annaga oo hawshii ku jirna ay wada noqotay hal mar oo kali haata. runtii dugsigan lama soo koobi karo qiimaha uu leeyahay. waxaa dhacday in markaasi maamulaha dugsiga Sheekh Cali Jawhar Maxamed Cali la khayr badan ha siiyo in uu kulmiyay dhammaan ardaydii ka baxday secondary-ga 72 up to 2025 maal habeenuna kulmiyay si markaa dugsiga wax looga qabto. classmate-kaygu ah 84-85 wuxuu noqday baaqi uu noo diray qofka ugu horeeyay ee markaasi dadka ugu horeeyay ka soo jawaabay inaanu noqono. waxaan baaq dheer u dirayaa dhammaan dadkii ka baxay dugsiga Sheekh Cali Jawhar inuu iyaga wada sugayo ballamihii ay qaadeen inay wada fuliyaan ay shay muhiim tahay. waxaad weyn bay tahay in maanta anigoo gobolkii Maroodi Jeex ka socda aan kaga qayb galo wacyigelinta ardayda ee imtixaanaadka ee gobolka Awdal khaasatan degmada Boorama. waana markii koowaad runtii aan imaado aan kaga qayb galo shirarka noocan ah inkastoo mar hore aan ibi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. waxaan leeyahay dhalinyartaasina soo barbaara maskaxdiina kaashada aqoontiina kaashada cidna ha isku halaynina imtixaanka kaliya baad geli doontaa qarankaaga iyo warqadaada ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha idin wada baasiyo laakiin ku tala gala naftiina inaad kalsooni ku qabtaan
wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. ardayda aynu halkan ku wacyigelinay wafdaniguu yimid waxaan leeyahay horta ramadaan mubaarak. cidda loo socda ardayda waa idinka, waxaad tihiin ubixii waddanka, waxaad tihiin madaxdii berri, waxaad tihiin waddankan mustaqbalkiisa iyo ciddii hore u wadi lahayd baad tihiin. ogaada inay idin sugayso hawl badan oo qalinka maanta waxaad u sidataan ay tahay waddankani qaabayntiisa iyo berri halka uu tegayo. waxaa markaa idin saaran dadaal badan iyo juhdi badan baa idin saaran inaad habeen iyo maalin u dadaashaan. maanta aqoontiinnu siday noqoto ayaa waddankana noqonaya, ummaddana ay noqonaysaa. haddii laakiin aad maanta dadaalkiinnu yaraado waxaad noqonaysaan kuwa ummadda cameeya, berrina kaalintoodii aan ka soo bixin. marka ardayda baan kelmadda ku soo koobaya, waxaan leeyahay dadaala insha allah. imtixaanaadkiinna iyo aasharadiinnaba ku dadaala, naftiinna aamina. way aqoontu waxa weeye waa waxaad adigu haysato maaha cidda kale waxay kugu caawiso. marka waxaan leeyahay dhammaan ardayda iyo mas-uuliyiinta kaleba assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. madashan iyo saaka u reeban la dagaalanka qishka iyo in ardaygu lagaa wacyigeliyo qishku iyo waxa uu yahay. qof kasta uu ka dheregsan yahay maskaxdiisa waxaanu ka keenin oo cid kale u dhiibtay intuu wadi karo ama halka ay gaadhsiin karto. laakiin qof kasta uu garan karaa maskaxdiisa iyo maankiisa waxa uu ka keeno halka uu ku gaari karo iyo waxay u goyn karto maalinka isaga iyo warqaddiisu ay isku soo haraan. arday kastoo halkani ku jooga saaka ujeeddadu lagugu yeedhay ama fariinta halkani lagaaga gudbinayaa keliya waxa weeye maskaxdaada ku kalsoonow, wixii macallinkaa uu kuu soo dhigay ku kalsoonow, naftaada kalsooni badan ku qab. ramadaan kariim baan leeyahay marka hore waa maalmihii khayrka lahaa. waxaan maalmaha khayrka leh maadaama ay dadku dhagahoodu iyo waxa weeyaan wacyigooduba maalmahan oo kale ay waxa weeyaan khayrka u nugul yihiin. waxaa loogu talagalay in maalmahan lagu soo beego wacyigelinta imtixaamaadka. wacyigelinta imtixaamaadku waa mid iminka maanta inoo bilowa socona doonta ilaa iyo maalinta imtixaanka la gelayo. waxay isugu jirtaa barnaamijka sida horeba laydigu sheegay waa daahfurka wacyigelinta imtixaamaadka oo sida kelmadda halkaa inagu qoran ay ku qorantahay ah fadlan ardayo ha seegin imtixaamaadka sanadka 2024-2025 ha seegin. macnaheedu waxa weeyaan qishka ha ku seegin. haddaad qish isku daydo ama aad waxa weeyaan wax isdabamarin isku daydo waxay sababi kartaa inaad imtixaanka seegto. taas macnaheedu waxa weeyaan fariintaasi inay dhammaan arday kasta oo Soomaaliland maanta imtixaanka u fadhiisanaya inay kelmaddaasi gaadho oo halkan aanu ka daafurno midiyaha iyo dhammaan bahda warbaahintuna ay kelmadda naga qaado gaadhsiiso inuu arday walba u diyaar garoobo qalin iyo warqad keliya oo uu imtixaanka ku gelayo sanadkan. waxyaabo badan oo waxa weeyaan lagu ogaan karaa jira jiitinka ardayga. waxaa jira inaan sanadka kolley gudoomiyuhuna waa sidiis faahfaahin doonaaye inaan ardaygu waxa weeyaan mobil u leeriyan doonin ee ardayga jiitinka sameeya imtixaanka uu samayn karo in uu gradekiisa losgareeyo ama uu dhammaanba waayo ama uu gradekiisa dhimo. in maanta halkan intay la kulmaan ay noo sheegaan ay inagu waaniyaan qaabka imtixaanka loo gelayo iyo in laga dhowrsanaado waxaan ahayn cilmigii aad soo baratay in qishka iyo waxyaabaha laga fogaado. aad baanu ugu mahad celinaynaa. annaguna kalsooni baan idinku qabnaa haddaad tihiin gobolka awdal iyo degmada booramada inaad aqoonteenna aad insha allahu tacaala aad waxbarashada ku geli doontiin. ardaygu isagoo degan oo welwelhaysan ayuu imtixaanka geli doonaa insha allahu tacaala. taa ku talagala, niyadda khayr u sheega. dhammaantiinba khayr baan idiin rajaynaynaa. ardayda quruxda badan leh ee halkan maanta timiday dee wax kaloo laynagala hadlay ma jirto. waxa weeye waa mustaqbalkiinnii. waxa qishka la yidhaahayna waa ta intoo badan lagu soo eegaya qishku waxa weeye waa shay aanan maaragtay mubaaxis ahayn oo bannaanayn. rasuulkeenna inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam waman lam yakhsha khawfa qishaayi falaysa minii. marka waxaynu ku dadaalaynaa ardaydu marka imtixaanada ku jirto kolley iskagii oo ardaygu xariifa oo buugii inuu hor yaallo marka dambe buugii qalinka soo dhigayo warqadda ayuu xoogaa ku yar yimaadaa khalala. taasina way iska dhacdaa iskagoo ardaygu xafisan. waa wixii la soo wada maray. ardayda quruxda badan leh warley waxaan u malaynaya daboorama ardayda ka soo barta inay inta ugu badan ku naajaxda ay tahay. maanta waa laynaga doorbaday wasiirkii waxbarashadu inala joogo
gobollada dhammaantoodba waxaa maanta uu ka soo doorbado inuu boorama yimaado inuu halkan idin dhex joogsado inuu maaragtay wixii tala iyo tusaale aan idin siiyo. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. مركز كواد إلهي بقى محله مركز كوحيك توحان آديات ومحضينينا أرضيدا إيا والدينتا إيا معلمينتا لغو سو دويي وحكو آديات ومحضينينا نساقنا aad ugu mataqaanaa ugu faraxsannahay wasiirka wasaaradda waxbarashada runtii oo iyadoo weliba hawl badan u taalay lagu soo dhiirigeliyey in wacyigelinta laga furo gobolka awdal oo weliba doortay dee in Sheekh Cali Jowhar ay noqoto oo iskuullada iskugu yimaadaan isagana aad iyo aad baan leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro runtii waxaa kaloo aad iyo aad ugu hambalyeynaya ardayda sida fiican uga soo qayb gashay wax sanadka waynu isku ducaynaynaa una wax badan oo hadal ma jiro wacyigelinta wasaaradda waxbarashadu waad ogtihiin awal annagu baqaaqda hayn jirnay laakiin sanadkan waxaan wasiirka mar labaad iyo mar saddexaad ku mahadinaynaa inuu wasiirka waxbarashadu runtii mataqaanaa wacyigelinta kow uu ka yahay awal xafiiska imtixaanaadkunbaa inta badan xiiqi jirayoo iminka laakiin wasaaraddii waxbarashadoo dhan baa hareeraha ka taagan aad baan runtii mataqaanaa markaa aynu u baahannahay inaan u soo dhowey waa kaa wacyigelintii dee isagu inoo daah furaya ee mataqaanaa runtii inagu goobaabinaya innaguna waxaan uga dhigaynaa abaalgud inaynu sanadkan ay ka duwanaato sanadkiina dhaafay hadduu ilaahayno intaama ballan qaadaynaa intaama ballan qaadnaa annaguna waxaan ballan qaadaynaa inaanu sida ugu wanaagsan hadduu ilaahay yidhaahdo imtixaankana mid baan idin sheegayaa oo idinka sii yar xadaya si jiitika loola dagaalamo waxaa laga yaabaa sanadkan micnaha waxa dhici karaan kule jiitin ha sugin waxa dhici karta inaan cidiba cid la imtixaan noqon qofba qof unan la imtixaan ahay salaanta waxaa ku bilaabayaa ardada waxaa ku xiga waalidiinta waxaa ku xiga markaa mas-uuliyiinta maayirka iyo guddoomiyaha xafiiska imtixaanaadka agaasimayaasha guddoomiyayaasha gobollada macalimiinta dhammaanba assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. runtii goobtan aynu joognaa iskuulkan maanta aynu joogno magaciisa waa maxay? halkani waxa weeye meesha tani waa goobtii somalilan laga amaamuray soo maaha hoolkii xagguu ku yaallaa maxaa halka loogu doortay wacyigelinta looga bilaabo waxa weeye maadaama somalilan halka laga amaamuday oo halkan ay ka bilaabatay wacyigelinta imtixaanaadkuna maanta halkan ay ka bilaabanaysaa somalilan oo dhan maadaama ay tahay hooyadii somalilan oo weliba goobtani tahay bogcaddani tahay waxa aynu uga bilownay waa sababtaa weeyaan inaynu somalilan halkii laga bilaabay aynu wacyigelinta imtixaanaadkana ka bilaabno si aynu u gaadhno guul soo maaha yaa doonaya inuu qisho sanadkan yaa doonaya inuu qisho gacanta taag yaa gacanta taagaya inuu qisho inaanu qishin yaa doonaya gacanta taag maasha allah maasha allah waxa weeye qishku sidiisaba sidaa uu guddoomiyuhu sheegay dee ma bannaana soo maaha qofka doonaya inuu macallin noqdo qofka doonaya inuu injineer noqdo qofku doonaya inuu dhakhtar noqdo qofku doonaya inuu sheekh noqdo qofku doonaya inuu wax kale noqdo haddaad dhakhtar noqotid oo aan waxba baran oo aad qish ku baasto hadhow toddoba khalana dadkii u waraysaa soo maaha hooyadaa iyo walaashaadaad dilaysaa soo maaha guriga haddaad dhisto oo aanay waxba baran oo aad qish ku soo baastay guriga waa kugu soo dumaya dadkii baad leynaysaa soo maaha waa lagugula xisaabtamaya aakhirana soo maaha sidaa marka maxaan idinka doonayaa qishku inuu waa xaaraan in la qisho macallinka u fududeeya laftiisu waa mas-uuliyad saaran macallinku inaanu qishkana fududayn
ardayguna aanu ku soo talagelin waalidiintuna ay ku kaalmayso carruurtooda sida ay waxbarashada ugu dadaali lahaayeen. waxaan weydiinayaa gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka magacaygu waa Sumaya waxaan ka soo jeedaa iskuulka Aadan Saaq waxaan weydiinayaa imtixaankan muxuu kaga duwan yahay imtixaanaadkii hore exaamka mise su'aalkan imtixaanka montor sidoo kale waxaan weydiinayaa exaamka sanadkan galaaskee ayuu u badan yahay magacaygu waxaan idhaahdaa najax waxaan weydiinayaa wasiirka imtixaanada marka la eegayo imtixaanada magacaanta xarfaha see loo eegaya ama xarfaha calashaan qofafka sida loo eegay say u galayaan su-aashaasaan weydiin. bismillaahi raxmaani raxiim marka koowaad waan salaamayaa gudoomiyaha imtixaanaadka sidoo kale iyo wafdiga la socda magacaygu waa Jamaal Sheekh Daawud Warsame waxaan ka socdaa dugsiga Sheekh Cali Jawhar gudoomiye waxaan ku weydiinayaa laba su'aalood baan ku weydiinayaa su-aashayda koowaad waxay leedahay gudoomiye ka arday ahaan ma jirtaa waxaad nagula talin lahayd oo waano iyo waayo aragnimo leh oo ku saabsan imtixaanaadka si aan natiijo fiican u keenno su-aashayda labaad waxay leedahay gudoomiye maadaama aad maanta timid gobolka Awdal sidoo kale aad joogto dugsiga Sheekh Cali Jawhar dugsigana uu yahay dugsigii ugu horeeyay Soomaaliland lagu aasaasay sidoo kale uu yahay dugsigii ugu horeeyay ee gobolka ma jirtaa ardayda Sheekh Cali Jawhar waxaad nagula talin lahayd ama maxay ahaydana waxaad tusaale ahaan aad siin lahayd. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعدي ما هذا دن واحد سقنا تعالى سبحانه وتعالى سقول كان مدرسنا قرحة بدن له كاردنما ما أنت جلاس هذا الوار كيسانوا فنفور ده فنفور هان ولو رسمي ده امتحانات هانيو قولا هان بعد ما أنت نقول بنو درجينيا هل قاعد أنت كجاي ما ده دومية امتحانات كسويش إنه يدين عين أنا هان قبوا جلاس فنفور جيس أفريقيا هو قبائل واحد له هاي قدومية امتحان كا أنت بدن ده امتحانات هذا اسكو متبع هاين صوب امتحانات كله كله دوي هذا تسوى سؤال سؤال الله بعد قدومية امتحانات كودينا إنه واحد هاي كالكولاتر كا بيالو قلياي هذا سؤال استحالة ودينا قدومية أنا وحي لا هاي قبل كيجا أما قبل كعوض المركز ليجا قبل هذا كلو كي امتحان دوجياي كل سال ودوجي حقيقتنا ده كل حقيقتنا على اسكما قبته وواحد ليدا قالوا يرتر واحد ليدا قالوا يرتر سوى المر كل دليرت هذا يو دقيتي يدو بعرك امتحانات كل دوجي امتحانات تكسيرة كله أما قبل هذا كله سويت قبل كعوضل على اسكبران الله صار هاي محيط هاي سياشة سنواتاس أدبان السلام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مقعي مهدي بلال أحمد وين waxaan la hadlayaa anuu wasiirka weeyaan gudoomiyaha imtixaanaadka maaha marka su'aasheedu waxay ahayd manhajkan Soomaaliland markaan ka waramayno ka rag ahaan annaga waxaan sugay mustaqbal weyn iyo maxaan ku dhahay han weyn baan sugaya marka manhajkan Soomaaliland anuu dood baan ka qabaa ah in aanu diyaarsanayn inuu wax nafcila u nasiyo marka waxaan codsanaynaa manhajkan in dib loogu noqdo oo la bedelo alaqsa gudoomiyaha imtixaanaadka waxaan weydiinayaa su-aasha ah imtixaanka waxaa loo saxaa si degdeg ah tusaale ahaan marka la saxayo oo si degdega loo saxayo waxaa maatistoo kale macallimiinta marka loo dhibo 15 kun imtixaano lagu yidhaha 3 cisho ku saxa khaladaad badan baa imanaya marka taas maxaa siyaasadda niga yaala maadaama imtixaanka badan maxaa waqti badan loo sii waayay si waqti badan loogu soco aad baa mahadsantahay. بسم الله أنا مقعيق يهي ياسمين مالك حسين كنا سعودة دكتور الشيخ أحمد سلام بريمري سكول وحنا قدوميها امتحانات كوع سننا إن أي نوجود يبان دكس مع معلمين الدكسية صار أي نوجود يبان معلمين الدكسية ده حوايجا أوج حقت أردن. بسم الله مقعيق وسعيدة أحمد هذين وحنا كسعودة سكول كقب إن شاشة ويدينا وسير كوحبر الشذا وحويان أنا أرضي كبحر امتحاناتي هرا أنت بدل وحنا أنا جاي دادان امتحان كواحد لوجود دافر أما واحد لوجود دا امتحان كفر مساقون تعالى توجود بيسا.
waxaan u dhiibaynaa guddoomiyaha su'aalo way naga xidhmeen tibaaca waarina albaadila baadila warsuqna ijtinaaba horta waxa fiican markaynu wax sheegayno wax xaqa ku fadhiya inaynu sheegno ma jiro awdal macallimiinta imtixaanka dejisa 8% waa ree awdal wayna joogaan halkan bay taagan yihiin ikaadi cadaadis ikaadi aan ismaqallo waa su'aashaasi way dhibtay su'aal meesha ku jirtana ma ahayn awdal hadday cid un loo naxariisto ama cid un lala saa'iro waa awdal waa koow markhaatigeegiina macallimiinta waktiga imtixaanka la samaynaya ama la saxaya awdal ka soo baxda waa koon macallimiintii qaar baa waa kan cabdifatax waa ka mid dhegayso waxaa iskuul walba loo yeedhin doonaa macallimiinta awdal ka tagta ama imtixaanka soo saxda ama dejisa markaa idinku awdala isweydiiyo macallimiinta weydiiyo bal halka cadaadiska markaa laydinka saaro natiijada ninka soo saaraana ee gacanta ku hayayna waa ree awdal iikaadi markaa waxa weeye taas horta su-aashaasi waad la seegtay inankii weydiiyo taasi meesha kuma jirto waa qodob ka halkaa inaga dhiga waynu soomanahay beenna ku wada hadli mayna halkaa kaa inaga dhig muxuu kaga duwan yahay imtixaanku kii hore wuxuu kaga duwan yahay ishcalaa hadda wuxuu kaga duwan yahay in sanadkaa maanta imtixaankuna au qoslaayo noqdo ardayduna ay noqoto arday hagaagsan baa loogu talagalay waa la habeeyey waxaa laga dhigay si aan ardayga neerfis ka dhigin baa imtixaanka sanadka loo sameeyey hadduu ilaahayna may fahanay taa wuu kaga duwan yahay iikaadi tii calculatorka waxaad ogaataan iminka inagu waxa dib ugu noqo awowga iyo aabbaha iyo ayeydaaba dib ugu noqo maskaxda bini'aadmiga waxa weeye maskaxdani waad aragtay iminka ninka faranjigii hadduu koob shaaha rabo inuu makhaayad ka soo cabo wuxuu qorayaa saacaddu markay intaa tahay makhaayadda koob shaaha ka soo cab sababtu waa maxay sababtu waxa weeye waxaan wixii oo dhan baa wada electronic noqday calculatorkan haddaba xisaabtan laguu keenayo waxaa loogu talagalay inaanay u baahan calculator gebigeyguba kow calculatorku waa scientific wuxuu isagaa calculatorku qishka ayuu fududeeyaa sidaa awgeed baa calculatorka buuqan laydi siiyey dee horta waxa halkaa ku qoran adeerhaynu waxa fiican inaan xaqii ku wada dhaqanno halkaasay idinku qoran tahay calculatorka lama ogola wakaad su-aashaasina waa taa meeluhu u badan yahay imtixaanaadku sow maaha form 4 buu u badan yahay imtixaanku eid buu u badan yahay wakaa waa yahay magaca iyo xarfaha ardayda waa la isku dhex qaybiyaa waad ogtihido 20ka iskuulka casho ardayda imanaysaa 20 iskuulba qayb baa ka timaada goobaha lagu gelayo xarfaha markii loo eegi jiray waxaa haysanada hore oo arday doolan jiray maxamed doolan jiray wixii imika ma jiro waxa weeye ardaydu waxa loo qaybinayaa waa la isku dhex qaybiyaa nasiibka halkaa fadhiisato laakiin magac doolanayaa ma jiro waa qodob okay waxaa haday inaano beri horaan ku casuumay idinka wadadkii idinka horreeyey sheekh cali jawhar hadda goor waxaan ku casuumay arday ka mida iskuullada awdal in xafiiska imtixaanaadku broseska aw maraan waa tii ahayd imtixaanka waxa loo saxaa si degdega de horta inantii dhalmada hooyadeed uga sheekaysay inaynu noqon imtixaan degdeg loo saxaa ma jiro macallinku wuxuu saxaa macallinku hal su-aaluu saxaa macallin waliba
ma jiraan waxaanad iska dhaadhiciseen in macallinka inta imtixaan loo dhiibo sidaa intuu yidhaahdo wakhti loo qabtaana ma jirto bal horta waxaan idhi waxaan gacanta waxaan markhaati u qabsanaya dee waxaan horta maxamed sheekh xasan halkuu wax ka dhiga waa jaamacadda soo maha camuud soo maha adeer waxaa iyo cabdilaahi xaajiyo waraysta brofeysarada waaweyn ee imtixaanaadka ka shaqeeya ee meesha jooga kow waxaa kaloo jooga waa taqaanaa sarda mahdi xasan suldaan waxa weeye imtixaanaadka hadday cidi gacan ku hayso horta awdal baa gacanta ku haysa iimaanka taa geliyo horta suga xaqiiqa markaan ku wada hadalno yoon adeer waxaa weeye imtixaan loo saxaa deg deg ma jiro wasiirkii waxbarashaduna sanadkan buu kow noo yahay isagaa maqlaya isagaa halkaa nagu dhegaya haddii imtixaan deg deg loo saxo isagaa subrofessor guud ka ah waxa weeye macallimiinta looma qabto muddo iyagaa iskoodu dhammeeya macalkay guri weliba yidhaahdaan waan dhammaynay ayaa laga tiriyaa laga jeegariya kow warqadda la saxayaa waxay martaa intaasoo macallin walba kuwashan buu saxayaa waa la wareejinaya cabdifatax wuxuu saxaya su-aasha koowaad aw cabaas wuxuu saxayaa ta labaad aamina diirag waxay saxaysaa ta afraad waxa weye macallimiintu intaan imtixaanka gelin iyagaa imtixaan laga qaadaa macallimiinta imtixaankanay saxayaan oo bilaa magaca oo dham la yidhaa ayaa macallimiinta loo qaybiyaa waxaa la eegaa macallimiintu su-aasha koowaad macallin waliba bal hadda wuxuu ku bixiyey baa la eegaa oo la qiimeeyaa waxaa la eegaa mid baa ku bixinaya marka koowaad su-aasha koowaad waxaa laga yaabaa warqadii laga rabay 100 inuu ardaygii siiyo 20 mid baa laga yaabaa inuu 40 siiyo ilaa macallimiintu isla qabsato iyagaa imtixaan ku jira marka macallin walba isagoon kii kale ogeyn maarkiskoogu meel iskugu wada yimaado ee la yidhaahaa waxa lagu mid walba aysa soo taagayn konton halkaa lagu bixinayo ayaa warqadda laga ururiyaa macallinkii habkaa keeni waaya imtixaanba nooma saxo waa macallinkii ta laga hadlaya iyo waxaasoo dhan waxaa laga taxadirayaa in cadadkow aniga laga bilaabo sanad walba kitaabkaa qur-aankaa ee kariimkaa baanu gacanta saarnaa waxaa lagu dhaartaa inaan ardaydaa somalilan inaan ardayda arday looga eexan iskuul looga eexan ilaahay yaanu gacan sidaa u saarnaa oon anigu bilaabaa in alla inta imtixaanaadka ka shaqaysana waa la dhaariyaa marka waxa weeye adeer nin iimaankiisa ku iibsanaya macallinka saxaya aabbaha hadduu saxayo warqaddaa u saxayo garan maayo wallaahi qaar baana weydoonaa inankiibaa igala jire waa bal xisaabtii tolow waan ku dadaalay wasoodigii saxaya maxaad u garan weyday waa maxaan ka garanayaa kunka warqadoodeedii dhiibtana bilaa magaca ma jiro markaa waxaan idinka bogsiinayaa yaan wax adeer beena aan laydinka dhaadhicin imtixaanaadka waa laga taxadiraa waxaa timaha noo madoobeeyey waa isagaa ka taxadirkiisa waayahay idantii dugsiga dhexe ilaaladaa timid waxa weeye haddii ay suurto waxa weeye mar walba waa la isdhaafiyaa ilaalada macallimiinta dugsiga dhexe waxay ilaaliyaan dugsiga sare macallimiinta dugsiga sarena waxay ilaaliyaan dugsiga dhexe laakiin waa isla macallimiinta gobolka uun haddii laakiin dhaqaale loo helayo eesh qiyaasakum waxa fiicnayd awdal waxaa ilaalinaya burca laga keeno awdal kuwa awdalla in burca la geeyo dhaqaalahan inoo saamaxayn taasaa ugu wanaagsanaan lahayd waa adiga kuma fiicno macallin aad garanaysa dee waxa kuu fiican meelaad garanayn waxa weeye waxaad ku soo dadaalaysa inaad ka shaqaysaa loo baayay waxaan u malaynayaa inaan su-aalihii farta arrintii farta adeer ameede inantii fariid ahayd ameede amina luuley meede adeer waxa weeye lama soxo mataqaanaa far qurux badan iyo far foolxun imtixaanka laguma soxo waxaa lagu saxaa aad xataa waxaa dhaweey waxaa la saara maxaa la yidhaahdaa weynayso si kasta fartu ha u xumaato waxaanu ku dadaalnaa qofkaasi hadduu rab waxaa jira qof xariifa aniguba waa far xumaha ilaahay baa runta jecele marka waxa weeye qofku wuu far xumaan karaa farta iyo aqoontu iskuma xidhnaa horta saa ma ogtahay sidaa awgeed farxumo cidina kuma dhacdo adeer qofkii farxumo ku dhaco aniga ii kaale far laguma dhaco wakaa taasina ma jirto ardaygii halkaasaad ku qayliseen ee yidhi waana maxaadna siinaysaa me aw cabaas arinkii halkaad lahaa waanadaadni siinayaa
ardaydu waxay ku dhacdaan idiin sheegayaa waana iga dhab waa soomanahaye imtixaanku wuxuu iskugu jiraa qayb adag iyo qayb jilicsan masalan waktina wuu leeyahay 10 daqiiqa laydin si horta waxa weeye ardayga wax lagu dhacaan idiin sheegaya haddaanad instructionka imtixaanka raacin waa dhacaysaa instruction buu imtixaanku leeyahay warqadda waxa ku qoran halkaa dusha waxa kaga qoran warqaddan tiri baa lagu yidhi waxa lagu yidhi warqaddan waxay ka kooban tahay 11 page tiri hadday wax ka dhiman yihiin u sheeg ilaaliyaha hadday wax ku saad yihiinna u sheeg waxa dhici karta warqadaadaasi in haddii mashiinka markii la rogayey inay warqad cadi ku dhex jirto ika 10 daqiiqa lagu siiyey 10 daqiiqa waxa loogu talagalay oo kuma jirto saacadaha lagu qabtay ee ku shaqeynaysa kuma jiraan 10 daqiiqa waa ka dheeraad warqadda marka lagu dhiibo waxa samaysan warqadda tiri waxa dusha kaga qoran warqaddan waxay ka kooban tahay 9 page oo daabacan ina 9kii page ee daabacnaa hayso horta tiri hadday kaa masaxan yihiin markaaba ninkan imtixaanka kuu qaybinaya u sheego waxaad tidhaahdaa waxbaa iga maqan ama waxbaa ku saayida markaaba waa laguu bedelayaa dabadeetana waxaad samaysaa intaanad wax kala bilaabin isha mari 10 daqiiqad markaad isha marisid su'aalihii waxaad kala fahmi doontaa wixii aad markaa fahantay ood garatay iyo kuwo laga yaabo dee imtixaanka jin iyo insi way wada galaane kuwo jin loogu talagalay inay kaaga soo baxaan waxaad samaynaysaa marka haddaba waxaad samaynaysaa marka hore kuwii insiga loogu talagalay eed fahantay bal hadda ka shaqee waayo wakti baa kugu socda hadhow macallinku wuu kaa guri doonaa wuu kaa qaadayaa si auna kaaga qaadin horta wixii aad garanaysay eed ku soo dhafarteed xalay soo akhriday horta ka shaqeeyo boobsii intan kale haddaba aad garan laadahay ee adiga iyo eesh caraaciddii kale ku shaqo lahayd hadduu waktigu dhacayo kuwaha ku dhacaanad garanayn dabeete warqaddii iska dhiibkeen ha lagu dhaha laakiin wixii aad xaasilka u taqaanay waxaanu aragnay arday badan oo yidhaha warqadda ha lai soo celiyo sida lagugu soo celin de waxa weeye waa saambuuso laga eedaamaye soo celis male markaa taasna waan taladaasaan idin siinayaa imtixaanka akhriya midna waan idiin sheegayaa ardaygu hadduu xataa su-aasha soo dhoweeyo horta waxaad ogaataan xafiiska imtixaanaadku maaha jeel loogu talagalay ardayda ama cadow ardayda loogu talagalay maaha waxa weeye waxaa loogu talagalay labada hablood ee walaalaha ahaa inaynu ogaano qof waliba wuxuu ku fiican yahay tuma xisaabta ku fiican tuma carabiga ku fiican tuma saynis waxan baynu eegaynaa imtixaankaa marka la saxayo hadduu ina daawud ku jiro iyo hadduu ilmo kale oo jidheed ku jiro cid kala garanaysaa oo magac halkaa ka helaysaana ma jirto markaa horta iimaanka inta ilaahay nagu sugo waa bil ramadaane kalsoonina ku qaba dalkiina iyo dadkiina iyo macallimiintiinaba iyo xafiiskiina imtixaanaadka xafiiska imtixaanaadka adduunyada oo dhan waa laga soo hambaliyeeyaa shaqo fiican baad qabatay baa la idhaha eesh qiyaasakum idinkun baa laad nagu kiciyo oo yidhaahda xafiiska imtixaanaadka waa caynka marka adeer ducahan la kala hadhna sanadkaa maanta ducahan ku kala tagno warraa awdalooba ismaqlaynaa ducahan isu ogaano waxaasina ma jiraan haddii cid loo soo buri horta waxa weye macallimiintii awdal hadda kadib in la yareeyay noqon doonta mar haddii ayna riboort baydi soo gaadhsiinayn oo inayni horeyn annaga imtixaankii gacanta ku hayno dee marka annagii iyaga hawlinoo taallaaye wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii guddoomiyaha waxbarashada arrimaha uu ka dhawaajiyey runtii aad baan ugu kuurgallay macallimiinta imtixaanka dejinaysa iyo kuwa saxayaba waan la kulannay waanaan la kulmay sidaa guddoomiyuhu sheegay waxay u badan yihiin gobolkan aynu joogno maanta oo waan arkay anigu dee indhaha ayaan kusoo arkay talabaad waxa weeyaan aan idiin sheegayaa ee aan idinkula dardaarmayaa waa taa ugu dambaysay guddoomiyuhu sheegay imtixaanka marka warqadda laguu dhiibo waxaad iska eegaysaa inta bog ay ka kooban tahay waxaad iska eegaysaa in bog kasta wax ku qoran tahay waxaad eegaysaa in nambaradu isku xigaan wixii qalad ee ku jira markaasaad u yeedhaysaa
qofka imtixaanka macalinka imtixaanka qaybinaya waa talabaade su-aalaha qaarna way adkaanayaan qaarna way jilicsanaanayaane kuwa fudud ee aad markiiba garanayso ka jawaab intaanad ka jawaabin isku dayin kuwa aad waqti iskaga qaadin kuwa fudud ka jawaab aad garanaysid kabacdi kuwa kugu adkaada u soo noqo su-aashii haddaan ku soo noqdo manhajka haddaynu bilownay waqtiguuna qaadan doonaa inuu soo gaaro ilaa dugsiyada sare waxaynu ka bilownay dugsiyada hoose dhexe kii hoose dhexaa iminka socdo bilow ah markaynu kaa dhammaystirno ayaynu ka dugsiyada sare u gudbaynaa laakiin sidaan idiin xaqiijiyey imtixaanada waxaa lagu gelayaa kii aad iminka wax ku dhigateen kii hore ee mid cusub oo la diyaariyo iminka imtixaan laydinkaga qaadi maayo imtixaanka waxaa laydinkaga qaadayaa ka aad dhigateen inba ku jirtaan marka aad soo gaadhaan heerka ee laydinku dhigo wixii aad dhigateen baana waxaa laydinkaga qaadayaa wax cusubi ma jiri doonaan marka waxaan idiin sheegayaa inaad waqtigiina ka faa'iidaysataan mar labaad intaas waa idiin sheegaya ka faa'iidaysataan eegtaan su-aalaha aad soo weydiiseen guddoomiyahana runtii sidaa idinkaga jawaabay weeyaan badankoodana waanu kuurgalay intii aan joogay wasaaradda aadna waan uga mahad celinayaa oo aan ugu ammaanayaa dhammaan macallimiinta waqtiga iyo juhdiga geliyey inay imtixaanka idiin diyaariyaan iyo macallimiinta dambe insha allah iyaga juhdiga gelin doona inay idin ilaaliyaan oo waqtigooda gelin doonaan aadna idin salaam assalamu calaykum wa barakaatu bismillahi raxmaan raxiim wasiirka wasaaradda waxbarashada barbaarinta iyo sayniska guddoomiyaha imtixaanaadka heer qaran agaasimayaasha waaxaha ee wasaaradda waxbarashada barbaarinta iyo sayniska guddoomiyayaasha gobollada maroodijeex iyo awdal maamulka iyo macallimiinta dugsiga sare ee sheekh cali jawhar iyo dadka ugu muhiimsan saaka oo ah ardayda dugsiyada sare iyo fasallada sideedaad waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ku hadlaya magaca consortiumka save the children alight hafyoko sayfo iyo ururka talawadaag oo aan ahay agaasimihiisa guud mar labaad waannu idin salaamaynaa ujeeddada dhacdadani waxa weeye arrin muhiimin oo ah oo muhiim u ah ardayda labada fasale dugsiga sare iyo dugsiga hoose dhexe oo muhiim u ah qaranka iyo guud ahaan dalkeenna waxa weeyaan wacyigelinta in ay u diyaargaroobaan ardaydu inay ka qayb qaataan oo ay galaan imtixaanaadka foodda inagu soo haya oo ay ku dhiiradaan in aanay misgarayn fursaddaasi iyo qodobka labaad oo ah in ay iska ilaaliyaan waxyaabaha wiiqaya ama hoos u dhigaya tayada qofka iyo tayada qarankaba oo ah qishka iyo kala eegashada oo ah dhacdada inoogu muhiimsan maanta haddaan dib ugu yar noqdo hay-adahani waxay ku shaqeeyaan siyaasadda iyo hagidda wasaaradda waxbarashada u dejisan waxaananu kaabnaa wixii aanu wax ka qaban karayno arrimaha la xidhiidha tayeynta waxbarashada fidinta waxbarashada iyo dhismaha iyo kobcinta awoodda hay-adaha waxbarashada ka shaqeeya marka waxaan idiin rajaynaynaa anigoo magaca hay-adaha ku hadlaya in aynu dalkeenna iyo dadkeenna aynu guul gaadhsiin doonno guushaasina ay ku qotanto ilaalinta tayada waxbarashadeenna ilaalinta tayada waxbarashadeeduna waxunbay ku imanaysaa uun ka fogaanshiyaha iyo iska ilaalinta sidii aan markii horeba sheegay waxyaabaha qishka mar labaad iyo mar saddexaad waanu idin salaamaynaa waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynayaa aad iyo aad ba u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu bismi illaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah ugu horreyn wasiirka wasaaradda waxbarashada brofesor ismaaciil ducaale yuusuf agaasimo waxeedyada halkan ka soo qayb galay agaasimaha qorsheynta agaasimaha inclusive educationka waxbarashada loo dhan yahay agaasimaha xidhiirka agaasimaha communicationka
guddoomiyaasha gobollada Maroodijeex iyo Gabiley guddoomiyaha loo martida yahay ee gobolka Awdal dhammaan bahda waxbarashada iyo guddiga iskuulka dhammaan waxa weeyaan martida sharafta kale ee nala joogta ardayda sharafta leh waalidiinta waxiinaba waxaan ugu salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh rabadaan kariim baan leeyahay marka hore waa maalmihii khayrka lahaa waxaan maalmaha khayrka leh maadaama ay dadku dhagahoodu iyo waxa weeyaan wacyigooduba maalmahan oo kale ay waxa weeyaan khayrka u nugul yihiin waxaa loogu talagalay in maalmaha lagu soo beego wacyigelinta imtixaamaadka wacyigelinta imtixaamaadku waa mid iminka maanta inoo bilow ah socona doonta ilaa iyo maalinta imtixaanka la gelayo waxay isugu jirtaa barnaamijka sida horeba laydigu sheegay waa daahfurka wacyigelinta imtixaamaadka oo sida kelmadda halkaa inagu qoran ay ku qorantahay ah fadlan ardayo ha seegin imtixaamaadka sanadka 2024 ha seegin macnaheedu waxa weeyaan qishka ha ku seegin haddaad qish isku daydo ama aad waxa weeyaan wax isdabamar isku daydo waxay sababi kartaa inaad imtixaanka seegto taas macnaheedu waxa weeyaan fariintaasi inay dhammaan arday kasta oo Soomaaliland maanta imtixaanka u fadhiisanaya inay kelmaddaasi gaadho oo halkan aanu ka daafurno midiyaha iyo dhammaan bahda warbaahintuna ay kelmadda naga qaado gaadhsiiso inuu arday walba u diyaar garoobo qalin iyo warqad kaliya oo uu imtixaanka ku galayo sanadkan waxyaabo badan oo waxa weeyaan lagu ogaan karaa jira jiitinka ardayga waxa jira inaan sanadka kulli gudoomiyana waa sidiis faahfaahin doonaaye inaan ardaygu waxa weeyaan mobile leeriyan doonin ee ardayga jiitinka sameeya imtixaanka uu samayn karo in uu gradekiisa la skireeyo ama uu dhammaanba waayo ama uu gradekiisa dhibo ardayga khaasatan ardayga 8ka iyo form 4ka waxa uu taala diyaar garow dheeraada inay galaan maalmaha imtixaanaadku soo dhow yahay ka wasaarad ahaan allaku wacyigelinta waxaa noo dheer barnaamijyo ardayga lagu kordhinayo aqoontiisa oo iminka markay rabadaan tunaga baxdo sidaa ciidka ay u bilaabmo waxaa ka soo geli doona TV-ga qaranka iyo page-ka wasaaradaba casharadii 8ka iyo form 4ka ayaa idiga soo geli doona oo aan doonayno inaan iga kabno si aa ugu sii diyaar garoodaan ardayga wax laga rabaa inuu maalmahan oo kale uu qol sii karaysto ama ay qol galaan ay gruubo u shaqeeyaan diyaar garow ay sameeyaan halkay marka dambe qish isu caawin lahaayeen iminka ay aqoonta isku caawiyaan waxay kelmadaydu ugu soo gabagabaysaa diyaar garow oo qishtoon dantaada ha ku seegin ardaygu hadduu iminka sii diyaar garoobo midhaha marka dambe buu goranayaa dhammaan arday waxay idin rajaynayaa inaad grade fiican keentaan meel kasta joogtaan Soomaaliland ardayda khaasatan gradeeka 8aad iyo gradeeka fasalada 4aad in ay imtixaanka sanadkan ku galaan kalsooni inaad ku gashaan baan idin rajaynayaa kalsoonidaana in aad midhaheeda helaysaan oo qof walba wixii uu shaqaystay waxaa kaloo iyadana meesha ku jirta ardaydii absanka ahayd ee 3 bilood u dambeysay inaanay iyaguna imtixaamaadka geli doonin ardaygii waxaa la ogaaday rabshadaha ugu badan ardayda samaynaysa inay tahay ardayda iska maqan markaa ardayow atan iyo xaadiriskaaga iyo waxa weeyaan inaad joogto iskuulka waxay ka qayb qaadanaysaa in imtixaanka aanu ku seegin markaa taana waan idigu wacyigelinayaa inay is ilaaliyaan ardaydu oo ay iskuulka xaadiriskiisa ilaaliyaan oo maalmaha u dambaysa ardaydu way hawliyaan waliba ardayda 4ka ahee casharadooda ay dhammaystaan oo iskuullada aan laga waayin taas waxa weeyaan waa gabagabada kelmadayda waxaan idigu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waraxmatullaahi wabarakaatu wasiirka wasaaradda waxbarashada barbaarinta iyo sayniska jamhuuriyadda Soomaaliland Professor Ismaaciil Ducaale Yuusuf gudoomiyaha xafiiska imtixaamaadka Daawud Axmed Faarax agaasimaha waaxda special needska agaasimaha waaxda qorsheynta agaasimaha waaxda isgaarsiinta agaasimaha waaxda waxbarashada tooska gudoomiyaasha gobolada Maroodijeex iyo Gabiley general directorka hay'adda talawadaag dhammaantiin waxaan ku salaamayaa marka ugu horeysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ka gobol ahaan maanta farxad gooniyay noo tahay in munaasibadda lagu daafuro gobolka Awdal oo nagala soo qayb galaan martida sharafta leh ee uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda waxbarashadu madashan iyo saaka u reeban la dagaalanka qishka iyo in ardaygu laga wacyigeliyo qishku iyo waxa uu yahay
qof kasta uu ka dheregsan yahay maskaxdiisa waxaanu ka keenin oo cid kale u dhiibtay inta uu wadi karo ama halka ay gaarsiin karto laakiin qof kasta uu garan karaa maskaxdiisa iyo maankiisa waxa uu ka keeno halka uu ku gaari karo iyo waxay u goyn karto maalinka isaga iyo warqadiisa isku soo haraan arday kastoo halkani ku jooga saaka ujeeddadu lagugu yeedhay ama fariinta halkani lagaaga gudbinayaa keliya waxa weeye maskaxdaada ku kalsoonow wixii macallinkaa uu kuu soo dhigay ku kalsoonow naftaada kalsooni badan ku qab haddaad naftaada kalsooni ku qabi weydo oo wax kale oo meel kale laga soo minguuriyey aad ku kalsoonaato waxaad noqonaysaa mid khasaaray oo aan faa'iido badan ka keenin imtixaamkaasi laakiin waa la hubaa waxaad garanaysaa haddaad ka shaqayso maalinka imtixaamka laguu dhiibo ood ka maaranto inaad qish iyo wax kale raadiso inaad faa'iido badan keeni doonto sababtaa waxaad garato uunbaa meel ku geynaya inta badan ardayda waxaa dhacda marka lagu jiro imtixaamaadka in la yidhaahdo qish baa bannaanka laga keenay ama qish baa bannaanka laga soo helay waxaan idiin sheegayaa inaan qofka wax garanaya isagaa geli lahaa imtixaamka qishka bannaanka laga keenay ama lagu keenaya wax faa'iidaa oo kuu soo sidaa ma jire tu aad ka shaqaysay oo sax ahayd baa waxaa dhici karta inay qalad aad dib u goobaabto ama aad dib qolad uga shaqayso taa beddelkeedana maxaad dheefi doontaa dee inaad khasaarto oo aad imtixaamkaa ku guuldaraysato laakiin waxa aad garanaysay ee aad ka shaqaysay haddaad gudbiso intii aad garanaysay waad garatay haddii laakiin qish aad ku kalsoonaato tii aad garanaysayna waad waayi tu kale oo maxaydaan kuu soo socotaana ma jirto marka bifadlag fariinta halkaa maanta ku qoran ee wacyigelinta ka hortagga qishka imtixaamaadka ee fasalada 8aad iyo fasalada 4aad ayaa la doonayaa arday kastoo halkani joogaa fariimaha laydinla wadaagayo oo wasiirkii ugu sarreeyey wasaaraddu maanta idiin soo safray oo halkaa idinku yimiday inaad weelaysaan inaad maskaxda ku haysaan inaad maankiina ku haysaan sababtaa wax fudud maaha waxa keenay halkaasi wasiirkii ugu sarreeyey wasaaradda iyo guddoomiyihii imtixaamaadka ugu sarreeyey qaranka waa labadii mas-uule ugu sarreeyey wasaaradda xagga imtixaamaadka iyo wasaaradda waxbarashadaba si guudna wasiirkii baa hogaaminaya wafdiga intaa leega idiin yimiday wax kalena laydinkalama hadli maayo waxaa laydinkala hadlaya saaka waa mustaqbalkiini arday kastoo haddaba mustaqbalkaaga si aad u horumariso naftaada kalsooni ku qab imtixaamka wakti fiican baa ka hadhay inta uu ka hadhay naftaada iyo buuggaaga la sheekayso wakti badan qaado naftaadana wakti badan geli si aad wakti badan iyo wax fiican imtixaamka ugu keento hadalka dheerayn maayo saaka aniga marti baa leeyahay waan soo dhaweynayaa gobolkana waan ku soo dhaweynayaa saacad wasiir gobolka waxbarashadiisu si fiican baa u socotaa deganaan bay ku socotaa si guudna gobolku waa nabadgelyo gobol ahaanna si fiican baanu doorkan ugu diyaargalownay imtixaamaadka iyo maxaydaanay sidii ardaydeedu u wajihi lahaayeen hadday yihiin fasalada 8aad iyo hadday yihiin fasalada 4aad imtixaamaadkaana insha allah waxaan rajaynaynaa awdal ahaan inaan meel fiican insha allah ka gaadhno wabillahi tawfiiq aad baad salaamay بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم المركة كواد إلهي بها محله مركة كوحيكتا وحان آديات ومحضينينا أرضيدا إيا والدينتا إيا معلمينتا لغو سو دويي وحكو آديات ومحضينينا نساقنا aad ugu mataqaanaa ugu faraxsannahay wasiirka wasaaradda waxbarashada runtii oo iyadoo weliba hawl badan ugu taalay lagu soo dhiirigeliyey in wacyigelinta laga furo gobolka awdal oo weliba doortay dee in sheekh cali jowhar ay noqoto oo iskuullada iskugu yimaadaan isagana aad iyo aad baan leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro runtii waxaa kaloo aad iyo aad ugu hambalyeynaya ardayda sida fiican uga soo qayb gashay wax sanadkan waynu isku ducaynaynaa una wax badan oo hadali ma jiro wacyigelinta wasaaradda waxbarashadu waad ogtihiin awal annagu baan qaaqda hayn jirnay laakiin sanadkan waxaan wasiirka mar labaad iyo mar saddexaad ku mahadinaynaa inuu wasiirka waxbarashadu runtii mataqaanaa wacyigelinta kow uu ka yahay awal xafiiska imtixaanaadkunbaa inta badan xiiqi jirayoo iminka laakiin wasaaraddii waxbarashadoo dhan baa hareeraha ka taagan aad baan runtii mataqaanaa markaa aynu u baahannahay inaynu soo dhoweyn halkaa waxaad ka garanaysaan markaa wasiirku waa aqoon-yahan
macallinimayn badan ku soo shaqeeyey dalal fara badan oo dibaddaana ka soo shaqeeyey waayo aragnimo badan u leh arday iyo macallin iyo waxbarasho iyo imtixaan aad bay wasaaradda waxbarashadu markaa u nasiib badan tahay tiina waxay keentay waa kaa wacyigelintii dee isagu inoo daah furaya ee mataqaanaa runtii inagu goobaabinaya innaguna waxaan uga dhigaynaa abaalgud inaynu sanadkan ay ka duwanaato sanadkiina dhaafay hadduu ilaahayno intaa ma ballan qaadaynaa intaa ma ballan qaadnaa annaguna waxaan ballan qaadaynaa inaanu sida ugu wanaagsan hadduu ilaahay yidhaahdo imtixaankana mid baan idin sheegayaa oon idinka sii yar xadaya si jiitika loola dagaalamo waxaa laga yaabaa sanadkan hee micnaha waxa dhici karaan kule jiitina sugin waxa dhici karta inaan cidiba cid la imtixaan noqon qofba qof inuuna la imtixaan ahayn marka waxa markaa halkaa ka soo baxaya ma waxaad rabtaa inaad isku imtixaan noqotaan waa fahnay waa yahay waan dhegaysanay taana waan maqalay waa hagaag markaan inta halkaa kaga tagno waxa muhiima ma ismaqalla haddaba waxa muhiima runtii waxa weeye inaad intaasi waa kaftan markaynu xaqiiqda iskula nimaadno waxa weeye ardayow 12 sano ama 8 sano waxa waalidku waxa laga yaabaa inay hooyo iyo aabbo werwerka cuntadaada iyo iskuulkaaga fiidiisa imtixaanka fiidiisa inay ka werwaraysay maxaana waxaasoo werware iyo dadaala gelinayo inay kugu nasato mustaqbalka waalidku kugu nasto soo maaha taadar inaad wax barataa markaa qurux badan mar haddaan geel iyo adhi kale la raacayn soo maaha buuggaa yaree foorfoorkee laynoo diray sanadkan waad ogtihiinoo student advice-kiisoo laydima qaybin waa laydiin qaybiye buuggiisoo maaha tilmaamaha ardayga loo waxa weeyi waa buugga waa laydiin qaybiye saan filayo buugga waxaa ku qoran waxa aad ugu qoran maca jadwalkii wuu ku yaallaa sanadkan jadwalkana waa ku soo darnay awal jadwalku kuma oolin sida maadooyinka loo gelayo jadwalkiina wuu idinku qoran yahay waxa keliyaad markaa ka taxadirtaan waxa halkaa ku qoran wasaaradduna waxay culays saaraysaa revision baa laydiin samaynayaa waxaa la sharciyeeyey guddi buu sameeyey wasiirka wasaaradda waxbarashadu in dib wixii iskuullada laydinku soo dhigay imtixaanaadkii in buugtii manhajka ahaa oo kuwii laga sii diin jiray t v-ga ayaa la bilaabayaa faa'iido badan baa ku jirta halkaa ha laga faa'iidaysto haddaad casharkii iskuulka kugu dhaafay halkaasaad ka helaysaa waxa weeye waa lagu celcelinayaa waxa aad baa loogu celcelinaya kow wacdiyo de horta waxa weeye waynaga wada xijaaban ee wada gar kale ee wada xijaab kale dee xadiid nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam amarkiisa inaan qaadano soo maaha dee nebi maxamed qishku waa xaaraan buu yidhi ma meelay ku xalaaleeye baad haysaan haddaba sidaas darteed baa loo baahan yahay inaynu ka fogaano man qashanaa fa laysa minna waa xadiiskii nebiga oo saxiixa waxaad dhegaysan doontaan oo wacyigelinta ku jira culimmadeenna waaweyn ee dalka somalilan iyagoo ka hadlaya marka aniga waxaa ila qurux badan horta adigay dan kuu tahay annagu waa la iska kaa sii dayn karaa intaad qishtaan in haddii 100% lagu siiyo ama 10 star lagu siiyo ood berri markaad jaamacaddu tagto halkeed ka mari doontaa jaamacaddii waad ogtahay camuud markaad gashe imtixaankii ugu horreeyey baa lagugu soo reebaya marka maxaa qishkii kuu taray mar kod imtixaankii ugu horreeyeyba dibaddaa lagu soo dhigaya markaasoo kaba qurux badnaa intii toobalcaaro lagaa saarayo aad sidan lahayd shaarkaaga yarood iska jeexjeexadoo habeen walba iska maydhato ood saabuun qurs yaroo saabuuna intaad ku maydhatid intaad shaar arad lahaynoo aw cabbaas berrita hadduu rabo suuqa kaaga dhex saari karayo qishkani waa sidaa uun iminka waxaa dhacay iskoolarshibiyadii baa lagu soo ogaaday arday haysta c iyo arday a star haystaa wada tegay scholarshipkii
waxaa dhacday oo xaqiiqaa kii A-starka haystay inuu wadi kari waayo jaamacaddii dib u soo noqday sababtu waa maxay sababta ma ii sheegi kartaan waxauna lahayn buu dee jaamacadda la tegay soo maaha ilan A-starkan waxaa loogu soo diray inkaan qabahanubaa loogu soo diray marka wuu naqilay xafiiska imtixaanaadku dee wixii warqadda ku qoran unbuu saxaa waa la saxay A-star buu keenay cabbaas markii jaamacaddii au tegey simisterkii koowaad waa la soo eriyey waa scholarship dibadda ah waxaa la ma wadi kartid jaamacadda annagana qoraal baana loo soo qoranaya dib ugu noqda ardayga iyo shahaadaddu inay isleeyihiin markaa taanu idinkala dagaalamayna waxa weeye ardayow inay wax anad lahayn intaad jaamacaddii la tagto ad dalkii naga ceebayso dalkii baad ceebaynaysaa naftaadii baad ceebaynaysaa wasaaraddii baad ceebaynaysaa xafiiskii waayo waxa weeye waad ogtihiinoo somalilan ardayda ka baxda waxay caam ku lahaayeen meel kasta oo tagaan iyagaa hoggaamin jiray laga soo bilaabo waktigii ingiriiska ilaa yoomuna haada laakiin baryo dhoweyta waxayna soo galay inaynu tacliintiiba iska daynay oynu soo ururinay imika waxaad arkaysaa inan ma odhan kara inan baa laga qaaday inan baanu ka qaaday 5 moobil 5 moobil baa laga qaaday haddana labadii maado oo ugu dambeeyeyba laba kale haddana laga 7 moobil ayuu arday kelisita xaafadii oo dhan eduu ka soo qaaday oo habaryaru ka soo qaaday oo adeer buu ka soo qaaday oo ina wixii uu soo wada qaaday moobiladii markaa imika waan iska daynay ururintoodii imika waxa weeye xafiiska imtixaanaadku dhowr kun oo moobil buu hayaa waxa markaa ogaanay dee moobilkan la qaadayaa faa'iida u leeyahay ma jiro in sidii kale bahalkii loola tacaala marka waxaa la bal carruurteena aan ku baraarujino horta waxaan aynu fahansiino waxaanaad waxu baranaysaa ma waxa weeye in waxa taqaano ku shaqayso ood ku shaqo tagtid oo jaamacada ku geshid mise adoo waxaanad garanayn baad ku talagelaysaa de waxaad garanaysaa adeed ku talagal waxa weeye sidiisana ogow sanadkii dhoweyto waad ogeydeen hawshu aad bay u badnayd wax kalena ma ahayn qoladii jaamacaduhu waxay isku dayeen inay si adag wuxuu ilaaliyaan dee waynu la soconnaa ila intayna waynu wada joognay ule marka waxa weeye adigu imika waxaynu rabnaa sanadkan inay tii hore ka duwanaato wasaaraddii waxbarashada wixii gacanta ku qabanaysa wasaaradda waxbarashada dhashoodii baa tiilo kolley way naxariis badan yihiinoo dhib badan idinkagama yimaado xagga wasaaradda idinkana waxaa laydinka rabaa inaad dhibka yaraysaan oo masale waxa weeye kalaas dhan baa waxaa hogaaminaya adigoo soo 12 sano soo kala hayay ayaa nin 12 sanaba bajaaj watay ayaa maalinta imtixaanka raba inuu soo bar adiga ku geliyo adna waad raacaysaa sidii xoolaad ka daba gelaysaa inaga bixiyo kalaaska waxba hadda waxaa laga yaabaa inuu kalaaskaba attend garayn jirin una iman jirin adigu markaa miyaanad xisaabtamayn adigii ku indhamadoobaada habeenkii laambadda shidanayey kolley dee waad wada tukataan salaatuleylka kadib wax akhriyayey iyo nin bajaaj iska watay ama meelaha caqaar ku cunayey inuu maalinta imtixaanka influence gareeyo xaguu qabta maskaxdaadii waa la ogaanay case study baa la sameeyey ardayda dagaalka samaysa horta dahab lama sameeyaan dagaal inamadan la hadlaya inamada dagaalka sameeya inta badan waanu baadnay sanadkii dhaweyto arday badan baa la xidhxidhay waanu raadinay arday keliya oo 20 cisho xidhiira iskuulka yimid kuma jirin wax alla wixii dagaalka sameeyey la yaab mada inuu dagaal sameeyo amba waa yeeli lahaa ilaa markaan iskuulkii dayaco ee soo xaadiri waayo marka imtixaankii la hor keeno laga keeno 15 xaashadood oo biology ah oonan markii la dhigayay iskuulkaba joogin ees qiyaasak maxaad markaadba samayn lahayd dee waa in madfac miskiin iyo balaayad urursataay waxaad maciid moodaysaa dagaal iyo si meesha rabsad uga dhacdo taasaa keensa marka waxaa la rabaa war intiinan dadaalaysa kalaaska ku jirtaa qofka waxaan idinku wada inaad go-aan ka gaadhaan idinku inuu intiina kala idin galaafan oo tidhaahda adeerde waxa weye iskuulba maad iman jirine caga dhigo waxa weeye markaa bil ramadaan ayaa ka soo hormartay inta badan imtixaankaa ka dambayn jiray ramaanta laakiin iminka ramaantaa soo hormartay ducada ma badinaa ducada intaynu badino midna waan idiin sheegayaa ridallaahi fii ridal waalideyn ardayda inta badan haddana rabsadaha sameeyaa
waxay badan markaan baaris badan samaynay gurigana rabshooday ka yihiin baaristaana waanu samaynay waalidka micnaha haddaad rabto inay imtixaanka si fiican u gudubto raaligelinta ilaahay wuxuu raalli ahaanshahaygu waxay ku xidhan tahay raalli ahaanshaha waalidka waa xadiisul qudsi ridallaahu fi ridal waalideyn waalidka ha la raalli geliyo caswaalideyn ha noqon waan hubaa qofka waalidkiisa raalli geliya hadday ayay tahay iyo hooyo hadday tahay hadday aabba tahay hadday adeer tahay hadday waal tahay wax walba inuu imtixaanka guulaysanayo malaa'ig baa kala shaqaynaysa dee eesh qiyaasak oo odhanaysa waa ninkii wanaagsanaa ee waalidkiisu u duceeyey ducada waalidkaa imtixaanka lagu gudbaa marka waxaan iyo ducada macallimiintaba oo daawud ugu horeeya aan isku ducayno ma idiin ducaynaa haye waan idiin ducaynaynaa inaanan aan midna idinka saqiirine idinkuna waxaad ku ducaysaan inaanad rabsho samayn ballan ma tahay mustacidiin waa halkii tabliiqiinta soo diyaar ma tiidin بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله salaanta waxaa ku bilaabayaa ardada waxaa ku xiga waalidiinta waxaa ku xiga markaa mas-uuliyiinta maayarka iyo guddoomiyaha xafiiska imtixaanaadka agaasimayaasha guddoomiyayaasha gobolada macalimiinta dhammaanba assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu runtii goobtan aynu joognaa ma ismaqlaynaa xaggaynu joognaa maanta waayay iskuulkan maanta aynu joogno magaciisa waa maxay halkani waxa weeye meesha tani waa goobtii somalilan laga amaamuray soo maha hoolkii xagguu ku yaallaa maxaa halka loogu doortay wacyigelinta looga bilaabo waxa weeye maadaama somalilan halka laga amaamuday oo halkan ay ka bilaabatay wacyigelinta imtixaanaadkuna maanta halkan ay ka bilaabanaysaa somalilan oo dhan maadaama ay tahay hooyadii somalilan oo weliba goobtani tahay bogcaddani tahay waxaa inoo aynu uga bilownay waa sababtaa weeyaan inaynu somalilan halkii laga bilaabay aynu wacyigelinta imtixaanaadkeena ka bilaabno si aynu u gaano guul soo maaha yaa doonaya inuu qisho sanadkan yaa doonaya inuu qisho gacanta taag yaa gacanta taagaya inuu qisho inaanu qishin yaa doonaya gacanta taag maasha allah maasha allah waxa weeye qishku sidiisaba sidaa uu guddoomiyuhu sheegay dee ma banaana soo maaha qofka doonaya inuu macallin noqdo qofka doonaya inuu injineer noqdo qofku doonaya inuu dhakhtar noqdo qofku doonaya inuu sheekh noqdo qofku doonaya inuu wax kale noqdo haddaad dhakhtar noqotid oo aana waxba baran oo aad qish ku baasto hadhow toddoba khalana dadkii u waraysaa soo maaha hooyadaa iyo walaashaabad dilaysaa soo maaha guriga haddaad dhisto oo aanay waxba baran oo aad qish ku soo baastay guriga waa kugu soo dumaya dadkii baad leynaysaa soo maaha waa lagugula xisaabtamaya aakhirana soo maaha sidaa marka maxaan idinka doonayaa qishku in waa xaaraan in la qisho macallinka u fududeeyey laftiisu waa mas-uuliyad saaran macallinku inaanu qishkana fududayn ardayguna aanu ku soo talagelin waalidiintuna ay ku kaalmayso carruurtooda sida ay waxbarashada ugu dadaali lahaayeen adduunyada waxaynu kula tartannaa shahaadooyinka dugsiyada ka soo baxa inay noqdaan shahaado la aqoonsan yahay haddiina la yidhahdo shahaadadeenna waa qish miyaynu meel gaaraynaa adduunyada mahorimo baynu ka gaaraynaa qishka waa inaynu u dagaalanaa oo aynu meel kastoo aynu joogno waddanka oo dhan aanna odhan somalilan qish bay ku soo baastaan carruurtoodu waa inuu qishka la dagaalanaa oo qishka u ahaadaa wax naga mamnuuca sanadka waxaa la gelayaa tartan waan idiin sheegayaa dhammaan somalilan iskuullada ku yaalla oo dhammi tartan bay gelayaan waxaa la eegayaa iskuulka ugu qish bata ayaa la eegayaa ma eegayno iskuulka ugu tartanka ugu sarreeya ma eegayno waxaan eegaynaa iskuulka ugu qishka bata ayaanu ku tartan siinaynaa markaa ka ugu hoos gala mayaad doonaysaan iskuulku inuu ka ugu qishka bata noqdo
iskuulkiinu miyaa doonaysa in qishka ku bata noqdo waxaa la doonayaa iskuulku inuu noqdo ka aan qish kas aan loona waa qisheen ardadaasi waa inuu magac fiican yeesho oo magaca uu ku soo baxo Somaliland iskuulkii aan qishka laga helin ee aan mobile laga qaban ee aan imtixaankiisa laga khalsal garayn ee laga baabiino waa iskuul hebel waa iskuulka ku yaala مثلا aynu soo qaadnay Sheekh Ali Jawhar iskuulka dugsiga sare ka soo baxay wuxuu noqday iskuulka wuxuu ku yaala gobolka wuxuu ku yaala Boorama wuxuu ku yaala Sayra wuxuu ku yaala Gabiley wuxuu ku yaala Hargeysa meeshu doonaba ku yaale iskuul waa lagu tartamaya iskuul baa loo tartamaya waxa la inooga baahan yahay in aynu qishka iska ilaalino qishku meel ku gaarsiin maayo ifiya aakhirana ma xaq u tari maayo waxa looga baahan yahay in aad ku dadaasho sidii qishkaasi aanu meel u gaarin waxaan aad iyo aad ugu waalidiinta iyo macallimiintana aad iyo aad waxa weeyaan waxbarashadii goobo badan baynu gaarsiinay hadeerto meelo badan oo sida uu agaasimuhu sheegay TV-ga baa laga sii daynayaa kalaasyadii in laga sii daayo oo barnaamijyada la baahiyo oo si aad markaa naqtiinkii iyo wixii aad ugu badan lahayd lagaaga baahiyo TV-yada laga sii daayo macallimiintuna culays badan inay saaraan in ay caruurtaasi noqdaan in loo celiyo naqtiin la siiyo waqtigii waa lagu jiraa imtixaanada lagu naqtiimi lahaa marka aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa maadaama maalin aad qoraxa joogtaan talabaad ee aan jecelahay fursad inaan uga faa'iideysto waxa weeyaan sidii ay sheegtay gudoomiyaha dugsiga sanadkii ka baxay dugsiga kale maanta joogno 84kii ilaa 85kii waxa weeyaan samsam say sheegtay waxaan jecelahay inay dadkii ka baxay iskuuladu ee hore uga baxay oo dhammaan inay ka faa'iideystaan fursadda ay ka hadashay oo aynu iskuuladeennii iyo dugsiyadeennii iyo deegaamadeennii wax ku soo celino oo maanta hadeerto waxa halka la dhigi doonaa dhagax dhigi doonaa marmarkii la dhigi lahaa qaybtan hore dugsi kasta oo ku yaala magaalada ardadii ka baxdayna waxaanu jecelahay inay sidaasi leeg wax ugu soo ceshaan dugsiyadoodii maamulayaasha iyo gudoomiyaha gobolkuna waa ka go'antay inay la shaqeeyaan inay iyaguna wixii hawla ee ku xidhan iyo wasaaradda wixii ku xidhanna aanu annaguna u hawl galno idinku waxa weeye far keliya fool ma dhaqdo haddaynu wada shaqayno oo ummaddu wada shaqayso oo kii ka baxay iyo kii ka shaqaynayey iyo kii wasaaradda joogay ay wax wada qabsadaan horumar baa la gaarayaa iskuuladeenu kor bay u kacayaan waxbarashadeenu kor bay u kacaysaa intaa waxaynu ka cabanaa oo la sheegaa oo meel walba laga sheegaa tayada waxbarashaduna way hooseysaa maanta waxaynu ku noqonnay inaynu dib u furno manhajkii qaranka ayaynu dib ugu noqonaynaa waynu eegaynaa waxyaalaha ku khaldanaa oo dhan baynu ka saaraynaa waxa weeyaan idinku laakiin maanta imtixaanka waxaad ku gelaysaan wixii aad soo dhigateen wax cusub oo laydinkaga qaadayaa ma jiro wixii aad soo dhigateen ee aad sanadaha dhiganayseen ayuunbaa la imtixaanka laydinkaga qaadayaa taana intaas oo manhajkii ugu socda qaybihii hoosaa laga soo bilaabayaa waana la bilaabay cidkas fursaddaana waa laga faa'iidaysanayaa ardada uga qaybso dugsiyada ee aynu maanta joogno Sheekh Ali Jawharna waxa weeyaan waan uga mahad celinayaa cid kasta oo ama qurbaha joogto ama gudaha joogtee wax ka geysatay bil Ramadaan baa lagu jira waxa leeyahay Ilaahay miisaanka xasanaadka idin saaro cid kasta oo ay sidaa ay sheegtay sababta sheegtayna ballan qaadeen in ballanqaadkii soo oofiyaan waqtiga bisha Ramadaan laga faa'iideysto maalmihii ugu dambeeyay khayrka aynu ku jirnaa inaad ducaysataan waan idin ducaynaynaa in Ilaahay idin fudayo imtixaanada idin fudayo in Ilaahay cumriga idin siyaadiyo aad ku ducaynaynaa imtixaanada soo socda Ilaahay idin fudayo cid kasta oo horumarka ka qayb gashay dugsiyada dib ugu soo celiyeen waxa leeyahay Ilaahay miisaanka xasanaadka idin saaro intaas aan ku soo koobaya kulli waan idin iman doonaa iskuul kale aad baan gobolada u mari doonaa oo aan soo wada booqan doonaa insha Allah marka Ramadaan laga baxdo insha Allah ayaynu ku soo qoordana maadaama hadda Ramadaan lagu jiro dadku wada soomay iskuuladuna ay ku wada mashquulsan yihiin sidii maalmihii ugu dambeeyay laakiin marka Ramadaan dhamaato insha Allah ayaan idinku soo noqon doonaa saan u booqano dugsiyada oo dhan waanu u eegno aanu idinla ogaano xaaladaha ku sugan tihiin iyo iskuulada ku sugan yihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh